waxaan sidoo kale ammaan u soo jeedinayaa iyo hambalyaba dadaaladii miraha dhalay ee maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan. waan u mahadcelinayaa odayaashii iyo saraakiishii iyo gabdhihii iyo qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee ka qayb galay arrinta ayada ah. waxaana ilaahay mahadiisa in ay dhammaantood isku raaceen in la dejiyo xaaladda amniga dib loo soo celiyo weliba in la soo afjaro fawdadii hubkii sharci la'aanta ahayd bulcadnimadii isla markaana la isla ogolaado inuu sharci u shaqeeyo. waxaan uga mahadcelinayaa in la adkeeyey midnimadii la soo afjaray wixii khilaafaad ahaa ee ka taagnaa meeshaas. waxyaabaha yarar oo dhimanna waxaan rajaynayaa in sidaas loo dhammaystiro waana hubaa in ay shacabka reer Hiiraan iyo guud ahaan shacabka reer Hirshabeelle ay awood u leeyihiin inay dhammeeyaan wax kasta oo khilaafaad ah oo keeni kara dhibaatooyin. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. waan u hambalyeynayaa, waxaan ugu hambalyeynayaa midnimada, waxaan ugu hambalyeynayaa nabadda, waxaan ugu hambalyeynayaa soo afjaridda fawdadii iyo saan sheegay hubkii sharci darrada ahaa ee dadka dhibaatada badan ku hayay. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. dalkeennu guud ahaan meel fiican buu marayaa, laakiin maadaama aynu ku soconno waddo cusub oo uu jeexay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah in aan wixii hore lagu noqon ee hore loo socdo, waxaan iska garanayaa in badan oo ka mid ah dadka in ay xaalkoodu yahay arrinta caadiga ah ee la yaqaano ee la yidhaahdo alkhawfu min almajhuul ama unknown zoneka qofku wax uusan ogeyn inuu ka cabsado. waxaan leeyahay cabsi ma jirto. dalkan meesha inaan ka wadno waa waajib, inaan hore u dhaqaajinno waaye, amnigiisa, dhaqaalihiisa iyo siyaasaddiisa intaba. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.